وحبيبنا محمد بن عبد الله وبعد دمان مرتشرف قيمها بدن دشا كسوغان مسؤولين حزب كلميه كلا دوان gudoomiyaha xisbiga مسؤوليinta kala duwan xisbiga kulmiye isiduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Togdheer madaxda garoomada kala duwan ee gobolka magaalada Burco dhalinyarada xogayaha gobolka weli dhalinyarada garoomada kala duwan ee Burco ka ciyaarta madasha nagula sugan dhamaantii waxaad ku salaamay salaanta islaamka aan soo qadimay galabta waxay noo tahay farxad weyn runtii xisbiga kulmiye ayaa qalabka sportis ee halka yaala wuxuu xisbigu ugu tala galay in bisha Ramadaan ee barakaysan wareegyada ka socda garoomada Burco garoomo ku dhow 6 garoon oo ka kooban garoonka Balaasa garoonkan maxadka ay joogno garoonka weyn ee culus garoonka weyn ee Alamse Stadium garoonka culus garoonka Saylada intaasoo garoon ayaa xisbigu wuxuu ugu tala galay wareegyo iyo tartamo ka socda in dhalinyarada ka ciyaari doonta kooxaha kaalmaha koowaad iyo labaad gala Ingiriis la siiyo in la siiyo koobab in ciyaar wanaaga iyo kuwa ku soo baxa muddada ciyaartu socotay abaalgudyada kala nooc ah hela iyagana bilad la gudoonsiyo xisbiga kulmiye isagoo ka duulaya dhiirigelinta dhalinyarada iyo inuu xoojiyo xiriirka xisbiga iyo ka dhaxeeya dhalinyarada ayaa gudoomiyaha xisbiga musharax madaxweynahana ah mudane Muuse Biixi Cabdi wuxuu soo qorsheeyay in dhammaan gobolada dalka la gaarsiiyo direysyada iyo koobabkaas sidaas baa kaliftay in maantana aanu Burco joogno garoomadii aanu ugu tala galay in aanu ku wareejino direysyada oo lagu soo xidho wareegyadii garoomada aan soo sheegay faraha badan ee ilaa 5 garoon ah in maanta la soo xidho ciyaarihii ka socday oo kooxihii ku guuleystay tartamadii ka socday garoomada kala duwan in maanta abaalmarinta la siiyo runtii aad bay farxad noogu tahay مسؤولينتي garoomada hawsha waday ee ka soo shaqeeyay ee soo dhameeyay waa hambalyeynayna aad bay mahadsan yihiin kooxahii kaalinta koowaad iyo labaad gale ee garoomada kala duwan shanta garoona iyagana waa hambalyeynayna waan ugu bogaadinaynaa waxaanu runtii muhiimadda iyo ujeedada xisbiga kale waxay tahay in dhalinyarada la dhiirigeliyo in dhalinyarada runtii la isgarab taago xisbigana waa lagu yaqaanay xukuumadda intuu qabsaday iyo ballanqaadkiisii markii uu mucaaradka ahaaba iminkana diyaar buu yahay inuu dhalinyarada soo dhaweeyo talada qaranka ka qayb geliyo la dhiirigeliyo aad baad dhammaantiin u mahadsantihiin salaamu calaykum.